يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. هم ناصروا المختار في تبليغه فجزاهم الرحمن خير ثواب. ما بال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشائخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. أما بعد، أيها السادة الأعزاء، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب أن يقدم تحية العاطرة المباركة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. وبعد، walaalayaal reer Komarok, raggiina iyo haweenkiina, yarkiina iyo weynkiinuba iga guddooma salaan diiran, salaan kal ilaab ah, salaan saaxiibkiin, wiilkiin, wiil Soomaaliyeed oo khayr adduunyo iyo khayr aakhira idinla jecel. Ilaahay waxaan ka baryayaa halkan gurigan barakaysan, majliskan cilmiga ah, siduu Ilaahay noogu kulmiyey لإعلاء كلمة الله إن مالك قيامه مع سيد الدعاة إلهي أنه كل ميو في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. ولا ليال الدوم ذي الله يذيلكين لابتين دهينا وحائن الله يا إلهي الله إن أبوري سبحانه وتعالى laabta indhihiina. rasuulkeenana sala allahu calayhi wasalam in badan ayuu si muuqaal ah, practical ah, uu saxaabada ugu sheegay oo uu uga digay xumaanta ay leedahay macsida ilaahay oo la eego, waxyaabaha ilaahay inaga xarimay oo indhaha lagu eego, lagu celceliyo, ilaahay wuu naga reebi. ودكتورتين يديلكين قرآن كوا وده تقانان هل كان وام مدرسة ولا ليال نمعة البصر إلهي حبناها ونسيي مدول باتكالوي كقالسان تاهي. ودكتورتين قلبي أوجو قالسان إيش وحي كم تاهي حبناها كوا أوجو قالسان هدي أين إلهي عابدنو شنبقل أوسانو gaari mayno. waa ogsoontihiin idaylkiin ummadeena cimrigeeda intaa ma aha 500 oo sano haddii layna gaarsiiyo oo intaa aynan caasiyin ilaahay oo aynu u caabudeyno xaqa cibaadatihi ma gudan karno nimcatul basar, nimcada indhuhu leeyihiin abaalkeeda ma gudan karno. waa ogsoontihiin idaylkiin rasuulka wuxuu inooga sheekaynayaa ummado hore sallallahu alayhi wasallam oo uu leeyahay nin caabid ah oo reerihii hore ummadihii hore kamid ah ayaa wuxuu ilaahay caabudayay 500 oo sano. meel buur ah ayuu deganaa, kor ayuu joogaa, waa 500 oo sano oo uu u taagnaa ilaahay, u fooraray, u rukuucayay, u sujuudayay, ishiisu waxun aanu qaban, dhegihiisu waxun ayna maqal. wuu ka soo degaa meel hoose oo buurta ah ayaa ilaahay wuxuu ka siiyaa cunno iyo cabitaan. wuu noqdaa, waa loo keenaa, malag baa u keena, wuu noqdaa, kor buu fuulaa, ilaahay buu sidaa ku caabudaa. waa intee 500 oo sano. maalinkii dambaa ilaahay oofsaday, wuu dhintay ninkii. miisaankii baa loo taagay.
markaasaa ilaahay wuxuu yidhi ninkan camalkiisa iska daaye malaa'igtaa lagu dhahayaaye adkhiluuhu ljannata biraxmatii ku geliya ninkan raxmadayda ku geliya jannada maxaa laga haleeyey wuu diiday ninkii wuxuu yidhi fayaquulu bal bicamalii yaa rab rasuul ilaahayow camalkaygii 500 oo sano ayaan ku caabudayay kuu taagnaa kuu rukuucay kuu sujuudayay macaasiya xaaraan aan ka fogaaday waa maxay ilaahayow raxmadda aad jannada igu gelinaysid aaway camalkaygii camalka muxuu tarayaa bal bicamali yaa rab ilaahow jannada igu gee camalkayga waxaa la yidhi soo celiya ogow annagaa darsi laynoogu barayaaye waa darsi camali ah soo celiya ayaa la yidhi ninka waa la soo celiyey waxaa la yidhi ayib waa kuu taadan kuu raaceynaa camalkaagan kugu geynaynaa jannada waxaad si samaysaa acmaashii aad qabanaysay oo dhana la soo qaadaya horta nicmooyinkayga oo dhan iska daa nicmatulbasar keliya ayaan rabaa ilaa nimco walbo ilaahayna siiye maxaa la rabaa in lagu shukriyo soo maha indhaha aynu wax ka arkaynaa shukri baa loo baahan yahay afka aynu ka hadlaynaa shukri baa loo baahan yahay gacanta dhegaha sanka urinta timaha quruxda jooga socodka dhaqaaqa fadhiga jiifka waxaan oo dhan caafimaadka waxaasoo dhan waana laga rabaa laakiin ilaahay nooma xisaabiyo waa bilaash waxaa la yidhi haddii aad xisaab la timid oo aad camal la timid waxaan soo qaadaynaa nicmatulbasar indhahaagaan soo qaadaynaa indhahan iyo waxaan isu dhigaynaa camalkii aad samaynaysay oo dhan miisaan baa la saaray nimcatulbasar indhihii aragtidii camalkiisii oo dhanna 500 waxaa la saaray miisaankii kale waxaa xoog noqday nimcatulbasar waxaa la yidhi ama haddii kale waxaaba qaatayba nimcatulbasar camalkiisii oo dhan waxaa la yidhi ayib nimcatulbasar waad gudatay dhegihiaan soo qaadaynaa haddana 360 xubnood bay ahaayeen 360 waa laga rabaa hal xabaa baxday meeqaa dhiman 359 xubnood baa laga rabaa ninkan waxaa la yidhi jaa camal uma yaalo waxaa isu baxay aragtidii iyo camalkiisii waxaa la yidhi okay maqalkiin aan soo qaadna ninka waa naxsan yahay maqalka haddii la saaro miisaankan kafkan kale camal la saara ma laha 500 waxaa fuuqsaday indhihii markaasuu naxay waxaa la yidhi haye miisaanka wax ma saarna war wax ma ku hareen maya ilaahay wax ima harin bas waxaa la yidhi aaway malaa'igta qaada fa adkhiluuhu naar naarta geliyaa la yidhi ninkii 500 cibaadaysanay markaasaa laga qabtay ninkii markaasuu cabaaday yaa rab biraxmatika yaa rab biraxmatik ii naxariiso jannada camal markii nama geynaya haddaan soonno oon salaadno oon zakayno oon xajinno oo birwaalideen aan noqonno midkeenna yaanu ku fikirin in acmaasheenna ay ina gelinayso jannada abadan camal wanaagsan oo aan samaynaa ku tegi mayno jannada ee hala ogaado laakiin maxay tarayaan acmaasha wanaagsan waxay tarayaan waxaanu ku helaynaa naxariista alle raxmadda alle aynu ku helaynaa raxmadda alle ee qaaliga ah waa midda ina geynaysa jannada ee aynu ogaano jannada ilaahi waa qaali halkaanu intaas dhaqdhaqad aad foorarsatay ku geli maysid janno ku goyn maysid waxba uma aadan qabanin ilaahay qur'aan aad akhrisay waxba uma aadan qabanin adaa nafsadaada wax u qabtay dhagahaagood xumaan ka reebtay waa wax faa'iido ku ah waxba uma aadan qabanin alle laakiin awaamirtiisu aynu raacno nawaahidu aynu ka harno waa waxa ina siinaya raxmadda alle raxmaddaas waa tan ina geynaysa jannada marka idelkan waxaynu raadinaynaa janno maahe waa raxmad alle si aynu u tagno jannada waa isla fahmay marka camalkeena wanaagsan raxmad ayaynu ku raadsanaynaa walaalayaal si aynu jannadii u galno ayib walaalayaal ilaahay wuxuu naga waxaa la xiriiriyey aragtidii in indhaha la laabo iyo iimaankii ayaa ilaahay xiriiriyey yacni indhaha qiimiga ay leeyihiin darteed iimaankii iyo isagaa la xiriiriyey markii laynaga reebayey oo la lahaa war indhihiina laabta war maxaarimta ha eegina la dhahayey yaa lala hadlay ilaahay yuu la hadlay wuxuu la hadlay dadka mu'miniinta ah iimaanka laga helay ilaahay lama una hadlin dadka aan iimaanka lahayn
kuwii iimaanka lahaba waxaa la yidhi waxaad ku tiraahdaa muxamedow sala allahu calayhi wasalam qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum dalika azkaa lahum ina allaha khabiiru bima yasnacuun waqul lilmu'minaati yagdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahuna mu'miniinta iyo mu'minaadka waxaad ku dhahdaa laabta indhihiina eeg raxmadda ilaahay indhahoo dhan laaba lama dhihin bal indhihiina qaar ka mid ah laaba ayaa la yidhi oo xifdiya farjigiina kadibna taasaa idin wanaag badan ilaahayse waa ogsoon yahay waxa aad samaynaysaan ilaahay waana ogsoon yahay yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur isha khaa'imada ah ee marka la wada socdo dee sidaas gabdhaha usii fiirinaya meelaha qaqaawan sidaa u eegaya guriga habeenkii markay galaan hooyo waxbaan akhrisanaya hooyo may casharan t v ka daawanaya waxaas waalidna ma oga dadna ma oga laakiin isha khaa'imada ah yaa og allah subxaanahu wa tacaala ilaahay marka waa ilaahana haya ilaaha aan qabriga aan ugu tegi doono ilaahana soo saaray ilaaha xisaabta aan ugu tegi doono ilaaha jannadiisa ama naartiisa aynu tegi doono walciyaadu billah allah naga koriye naartiisa marka waa la xiriiriyey dadka mu'miniinta ah waa dad aad iyo aad u qiimi badan dadka mu'miniinta iyo mu'minaadka indhahooda qaar ka mid a halaabaana maxaa la laabayaa war wax allaaliyo waxaad doonto eeg laakiin laba shay iska ilaali laba shay keliya iska ilaali inta kale waa kuu fasax waa maxay marka hore cawrada iska ilaali bani aadamka rag ha ahaado dumar ha ahaado iska ilaali waa cawro gabadhu waa inay ilaalisaa gabadha kale cawradeeda meel aan la ogoleen baa jir gabdhaha inay iska eegaan ragga sidoo kale waa in ay iyagana ilaaliyaan fasax isuma nihin isma fiirin karno meelo waxaa jira khatar ah oo aan iska eegi karin ragga labsadooda cawray qabaan soo ha eegin ninka kale cawradiisa yaanu eegin horta taas waa cawro tan labaad ee la iska ilaalinaya waa maxay labada qof ragga iyo dumarka labaduba haddana waa inay iska ilaaliyaan meelaha yacni ragga waa inuu iska ilaaliyaa maxaasinta gabadha meelaheeda ya shahwadda kicinaya gooni ahaan waxaana ugu sii daran hor iyo gadaal yacni labada cawro halka laga saxaroodo iyo halka laga yacni labadaas meel waa meelaha ugu sii daran marka hore in ragga kale ama gabadha kale ay iska ilaaliso cawradeeda taas waa caamkii midda kale raggu waa inay iska ilaaliyaan gabadha mafaatinteeda iyo meelaheeda khaaska ah lama eegi karaayo gaar ahaana loo sii ilaalinayaa rasuulkeena wuxuu lehy sala allahu calayhi wasalam laa yanduru arajulu ilaa cawrati arajuli wala almar'atu ilaa cawrati almar'a aad u eega xadiiska ninka yaanu eegin ninka kale cawradiisa war ma taqaanaa ragga inta cawradoodu tahay waa xudunta ilaa iyo jilbaha jilibka ilaa iyo xudunta inta u dhaxaysa waa cawrada ragga intaas ma qaawin karaan meel walbo ay joogaan banaan iyo gudo meelay salaada ku jiraan yaanay ku jirin jilbaha waxa ka koreeya iyo xudunta waxa ka hooseeya waa inta la qariyo weeyaan ragga meelahaas la iskama eegi karo haweenkana sidoo kale iyana waa jirkeedoo dhan laakiin gabdhaha waxay iska sii ilaalinayaan gabadha yaanay gabadha kale cawradeeda eegin meelaheeda khaaska ee mafaatinta khaaska u ah ee maxaarimta xataa aan la ogoleen gabadhana waa kamid looma ogolo inay fiiriso maaha meelaha khaasatan lagu fitnoobayo lama ogolo in la eego maxaa loo diidayaa waxaa loo diidayaa waa waxa maantana haysta waagii rasuulka ma aanay jirin sala allahu calayhi wasalam 14 qarni horteed waagii laynoo diidayey laakiin wuu ogaa maadaama diinteenu ay u cuntanto oo ay soconayso ay maxfuudo tahay ilaa qiyaami saaca ay shaqaynayso wuxuu la hadlayaa 14 sano ka hor sala allahu calayhi wasalam wuxuu la hadlay maalinka qiyaamaha intaan la gaarin ninka dhalan doono adduunka waqtiga ugu dambeeya ninka iman doono ayuu la sii hadlayaa diinteena waa fresh waaye cid walba waa ku dhaqmi kartaa jiil walba way qaadan karaan expire ma noqoto waagaa rag ma guursan jirin soo maaha waagii rasuulka ma jirin qowm baa jira qowmu luud waa la halaagay waa la baabi'iyey
waagaa marka ma jirin, waagii ka dambeeyey maanta waad aragtaan nin baa nin guursanaya, magacooda maxaa la yidhahdaa? gabar baa gabar guursanaysa, maxaa la yidhaahdaa? war maxay ka qaadaysaa? ya ma ilmay ka dhalaysaa? ninka kale ma ilmuu ka dhalayaa? waa maya, waa shaydaan soo maaha, waa shayaatiin weeyaan. marka waa la diidayaa, xataa waxaa la diidayaa waxyaabo badan oo aan dhaqan iyo caado ka dhiganay. waxaan laynoogu diidaya waa laba shay. imaa inaanu ku tagno zina, haddaan gabdhaha raacraacno wejiyadooda, dhaqaaqooda, sii socodkooda, soo socodkooda, dhabankooda, bishimahooda, haddaan eegna maxaa ka dhalanaya? zina soo maaha, wax kale ma aha. maxaa waxay rasuulkaa dhahaya sala allahu calayhi wasalam, maa taraktu bacdii fitnatan adara cala arijaali min annisaa. gadaashay ragga ugama aanan tegin fitno uga daran haweenka. waa waxa inoo diidan in aanu ku xirnaano alle, hoggaanka u dhiibanno, rag wanaagsan noqonno. yaa noo diidan? waa haweenka. yaana loo qaadanin haweenka oo dhan. haweenka waa laba nooc, waa ku celceliyaa si aan dadku u shakiyin. haweenku waa laba nooc, ilaahay baa inoo sheegaya. alkhabiithaatu lilkhabiithiina waalkhabiithuuna lilkhabiithaat, waalطayibaatu lilطayibiina waalطayibuuna lilطayibaat. gabdho tayibaad la yidhaahdaa jira, ragga tayibiinta ah loogu talagalay. gabdho khabiithaat ayaa jira, wiilal khabiithiin aha loogu talagalay. faasidiin, mufsidiin, mujrimiin, aafimiin, afaakiin ah ayaa loogu talagalay. marka gabdhahan aan idiin sheegayo ee fitnada ah ee laynooga tegay waa kuwa uu dhahayo xabiibkeena sala allahu calayhi wasalam, ku salliye, fattaquu ddunyaa wattaquu nnisaa faina awala fitnati bani israa'iil kaanat الnisaa. war adduunyada ka dhowrsada, gabdhahan iska ilaaliya. ma gabdhahoo dhana? maya, waa gabdhahan aan idiin sheegay. gabdhahan soo baxay, soo dhardhigtay, shayaadiinta ah, ka soo baxay guryahoodii, diiday amarka ilaahay, waqarna fii buyuutikuna, jooga guryihiina, halkaad ku asturnaydeen, halkaad xishmada ku lahaydeen, laydinka dhalay, jooga, diiday. war haddaad soo baxaysaan oo aad danaysanaysaanna waxaad qaadataan, ha u banbixina sida jaahiliintii ee xijaabkiina lu'lu'a qaata oo ku asturnaada diiday, soo baxay iyagoo dhurwaaya ah, bannaankii maraaya, luuq walba taagan, raggii meelay ka maraan la ee fasahaadda ah. kuwa waa kuwii halaagay reer banu israa'iil. waa ummado naga horreeyey, quruumo soo jiray, aad u adag, nebiyaal aan tiro lahayn oo boqolaal ah loo soo diray. akhiiran waxbaa ku qaadan waayeen, waa la rogay idaylkood. maxay ahayd fitnadii lagu rogay? gabdhaha markay bannaanka usoo baxeena meel walba macsi, zina. marka cawradan lagaa celinayo, imaa inay kuu keento zina, inay kuu keento waa tan gabdhaha ee laynaga reebaye, mise inay noo keento liwaad. ragga loo tagayo zina ma aha. zina waxaa la yidhaahdaa zinada waa haweenka loo tegaya, sida xaaraanta loogu tegayo weeyaan. laakiin ragga loo tegaya waa liwaad, waa la isku rogaa. marka ragga u tegaya waa liwaad baa la keena. marka liwaadkan waa ka daran yahay zinada, waa ka weyn yahay, waa ka daran yahay. maxaa wacay? ummado dhana inta la gooyey dhulkii halkii ay deganaayeen cirki marka la geeyey la soo rogay. laakiin dad zinaystay oo sidaa la yeelay ma laha. laakiin zinadana ma yare, ogaada, cudurro aanan daawo lahayn ilaa iyo qiyaami saaca ummado dhan rogaaya oo baabi'inaya oo barakada ka qaadaya ayay iyana leeyihiin. ayib walaalayaal, waxay keentaa waxyaabaha laynaga celinayo ee laynoo diidayo, waxay keenaysaa qalbiga oo ah xubinka ugu qaalisan xubnaha ilaahayna siiyey. xubinka ugu qaalisan ayay rogaysaa oo ay madoobeynaysaa oo ay dhoobaynaysaa oo ay wasakhaynaysaa. haddii uu kaa fasahaado qalbigaaga, khalaas waxaa go-aya xiriirkii alle subxaanahu wa tacaala ii u dhaxeeyey addoonkan daciifka ah.
haddii mar xiriirkiina uu go adiga ilaahay oo aad garan weydid sida aad ula xiriiraysid ilaahaaga haawiyaad gashay naar baad ku shalwatood ku dhacday halkaas waa halkuu dhahayo xabiibka sala allahu calayhi wasalam attaqwa haahunaa halka ilaahay looga baqa ee ilaahay nagu xidho waa kan waa waxyaabaha acmaasha oo dhan afcaasheenna iyo aqwaasheenna iyo wax walbo aanu jawaarixda xubnaha ka qabanno halka kaydisa weeyaan waa halka ilaahay uu la xisaabtamo soo ma ogidiin ilaahay inaanu xoolaheenna iyo quruxdeenna iyo wejiyadeenna iyo jirkeenna inaanu ilaahay eegaynin ilaahay ma xisaabiyo ilaahay wuxuu xisaabiyaa oo uu qofka ku qiimeeyaa oo uu eegaa qalbiyada iyo acmaasha labadaas shay waa labada aan dayacnay ilaahay baan kugu dhaarsheeyay marka waagu uu bariyo gabadheenna iyo wiilkeenna maxay ka fikiraan saabuun iyo boolbarihii iyo saliidii iyo cusburkii iyo dharkii lagu xiri lahaa jirkaan la gelin lahaa kabihii waxaas unbaa laga fikiraa sow maaha yaa ka fikira ilaahay baan ku dhaarsheeye warniyo waad kacaysaa bulshaad dhex tegaysaaye oo malaa'igi iyo ayaa jiro oo cid ku kontroolays bal qalbigaaga iyo acmaashaada qurxiyaa ku fikira ilaahay baan ku dhaarsheeye yaa ka fikira abadan qofna qalbigiisa iyo acmaashiisa kama fikiro war waa kuwa qaaliga aynu ka fikirno fasahaadu lqalbi marka qalbigaa qiimiga badan ee acmaasheena kaydinaya ee ilaahay naga xisaabinaya maalinka qiyaame yawma laa yanfacu maalun walaa banuuna ilaa man ata allaha biqalbin saliim eeg ubad iyo xoolo iyo waxba anfici mayaan maalinkaa maxaa anfacaya qalbigaa ayaa waxaa ku jira lala xisaabtamaya qofkii qalbigiisu saliim yahay oo ka soo shaqeeyey kaa isaga ahay qalbiga cadkaa ayaa maalinkaa guulaysanaya oo liibaanaya ayib marka qalbigii ilaahay lagula xiriirayey ayaa waxaa fasahaadinaya waxaan yare aynu fududaysanay aynu maalinkii o dhan waddooyinka taagannahay oo gabdhaha aynaan ka celinaynin oo tii sii socota iyo tii soo socota iyo tii nala joogta iyo kulligood aan indhihii ku wada caddaynayno oo aan ma aragtay dee aanu sawiranayno aan ka buuxsanayno indhaha qalbigeennu hallaynayaa saacaddaa haddaan ilaahay la kulanno waynoo dhammaatay walaalayaal eeg jariir ibni cabdillaahi saxaabada aad iyo aad bay arrinkaa uga fikiri jireen jariir ibni cabdillaahi radia allahu canhu ayaa wuxuu weydiinayaa rasuulka markuu dee rasuulka aad u adkeeyey arrinka ilaahayna uu sidoo kale uu leeyahay war ha la laabo mu'miniina indhaha laaba ayaa wuxuu leeyahay rasuul allow ilaahay indhaha laabuu leeyahay adigana sidoo kale laabaad leedahay bal ka waran can nadrati alfaj'ah ilaa gabdhihii meel walba waa kuwaanaaye bannaan walbay taagan yihiin kor haddaad fiirisid waa iyagii daaqaday kasoo wada jeedaan balkoonyay taagan yihiin hoos haddaad fiirisid way kaa hooseaan guri haddaad ka baxdid iriday kaaga hor imaanayaan bas haddaad raacdid waa kuwan waa iyagii oo dhan adduunyadii bay qabsadeen nadrat alfaj'ah sikadiisa haddii xataa haddaan indhaha qabsana laakiin marka si aana godadka ugu dhicin markaan kala furnaba haddii indhihii ay wax ku dhacaan ilaahay aanu raalli ka ahayn maxaan samaynaa wuxuu yidhi isrif basarak ka leex isha ka leex inta u leex tu kale hadday aragto haddaad aragtid ka leexi haddana kasoo dow jihaadaa la rabaa ishaada ka leex cali maxaa la yidhi ibn abi aalib karama allahu wajha waradia allahu canhu yaa caliy tababarka la siinayo fiiri rasuulka saxaabadu wuu tababeri jiray af un kamoona haddi jirin wuxuu yidhi yaa caliy laa tutbici nadrata nadra fainamaa laka alأuulaa walaysat laka alaakhira iyaga kelima ah wuxuu tababaraya adaa lagu tababaraya addoonkii allow innagaa layna tababarayaa innagaa laynoo sheegayaa ma kula tahay xadiiskan maanta inuu rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam kula hadlayo cali ibni abi aalib ma kula tahay yaa caliy ha ku soo dego laakiin lama hadlayo abadan aduu kula hadlaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam cali wuu kula hadlay wuuna ku dhaqmay aakhiruu aaday xag alluu la tegay cali maanta waajib ma saarna aduu ku saaran yahay adiguu ku saaran yahay oo idaylkan buu ina saaran yahay yaa caliy bimacnaa yaa muxamed yaa faarix
يا نور يا ورسمة لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. fiirada ha raacinin fiiro kale haddii adoonan u qasdin aad wax aragtid xaaraan ah gabar qaawan garbaheeda cagaheeda sii jeedkeeda soo jeedkeeda haddaad aragtid ha raacinin aragtidaa aragti kale ka leexi isha ha dhihin waryaha waxaan arkay mijin bay ahayd maxay ahayd wux bal aan hubsado ha ku celinin fa inamaa laka aluulaa tan hore adaa leh midda hore adaa leh laguma qabanayo walaysat laka alaakhira tan kale adiga ma lihid yaa iska leh malaa'igtaa leh waa qoraysaa way qoraysaa malaa'igtaa ku qoraysa waana lagugu cadaabayaa eeg labada aragti maxay ku kala duwan yihiin gabadha waad aragtay horaadkeedii baad aragtay iyadoo qaawan waa aragtida hore ishi waa ishii gabadhu waa gabadhii waktigu waa waktigii marka isha kaaga dhaxday astaghfirullah alcadiim waad ka leexisay waa ninka wanaagsan ee mu'minka ah kii kalena wuxuu yidhi o ruuxu maxay ahayd ma anaa u maleeyo ma qaawan tahay mise dhar jirkeeda u egay xiran tahay bal fiiri haddana okay middan dambe waa lagaa reebay soo maaha eeg labadaa aragti waa isku wakti waa isla gabadhii qofka waa qofkii wax arkay waxaa lagu leeyahay midda hore waa caafimaad lagu qaban maayo midda dambe laakiin waa dembi waa sun waxay ku dhaxalsiinaysaa suu'ul khaatima adduunka markaad ka tegaysid inaadan ku dhawaaqin oo cunaha lagugu dhego aadan tawxiid ku dhawaaqin wallahi 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 nolosha qofka oo dhan waxaa burburinaya lagu leeyahay shay xaaraan ah oo uu fiiriyey si ula kaca uu u fiiriyey waa hal aragti ah noloshaadoo dhan ay burburinaysaa waxba maanta ha fiirin mustaqbalkaaga akhiiran waxaad dhihi doontaa xaggee lagaa gaaray marka ilmahaaga cudurro ka bixi waayaan suuxdimee qalal ay kugu dhacaan dhac iyo tuugii balaayo waxaad dhashee lug iyo laba kaa gooyaan war xaggee layga gaaray waa caaisha markaad fiirinaysay faadumo fiirinaysay sawda aad fiirinaysay aragtidii yaraadee tir bal aan hubsaday aad ku celisay ayaa ku daba soconaysa haddaadan ka toobad keenin ilaa adduunka aad uga tagtid suu'ul khaatima shahaada la'aan walciyaadu billah walaalayaal wax yar waxaan rabaa bal inaan taabto waxaan practical hadal baa la hayay salafkeenii hore dadkii waa wanaagsanaa ee inaga horeeyay maantana jooga aan rajaynayna inay jannadii nooga horeeyaan ya ayaa bal say ku ahaayeen indhaha nin ayaa 30 sano waa nin sheekh ah arday ayuu lahaa ardayga 30 sano ayuu guriga ka cuntaynay 30 sano waa 30 sano ayuu gurigan imanayay laakiin maxamed ibn waasic ali yiraahdaa jaariyadu u diri jiray mar walba gurigii baa sheekha marka hor furi jiray mar gabadha furaysa laakiin maanta sheekhi waa mashquul ah ardaygii baa guriga soo garaacay markuu soo garaacay baa wuxuu yiri bal ka fur jaariyadii gabadhii u diraya ka fur ninka soo garaacay waa ayo qofka soo garaacay bas way furtay ninkii uu soo galay gabadha markay soo baxday gabadhii baa timid wuxuu yiri yaad ka furtay qofkii aad ka furtay uu ahaa ee guriga garaacay waxay tiri waa ninkii saaxiibkaagii indhoolka ahaa waa saaxiibkaagii hadalka eeg indhoolka ahaa waaye gabadha 30 sano ayay wiilkan odagan waxay ka furaysay guriga 30 sano waxay u haysatay indhool inuu yahay aan waxba arkaynin waa saaxiibkaagii indhoolka ahaa wuu qoslay marka odayga markuu qoslay gabadha ay baxday odayga kale uu soo galay markii aad soo garaacday ee aad soo gashaan gabadha weydiiyay aad ka furtay waxay tiri waa saaxiibkaagii indhoolka ahaa 30 sano ka furaysay guriga waxay ku haysataa inaad indhaha la'adahay ninka ma indha la'a laakiin gurigu garaacaya sida edabta iyo xishmada diinteenu ayna barayso iridda lama hor istaago gees baa loo leexdaa qofka ka furaya khaasatan dumar haduu yahay hoosa laga fiiriyaa gabadhan inta sanay furaysayba ninkan waa nina waxba arkeen hoosu sida u fiirin jiray malaha haystari ninkan alwaaxa meesha taagan waa indhool wax ma arko waa saaxiibkaagi indhoolka ahaa edabta bal fiir ilaahay baad ku dhaariyay annagana waxa waaye waaba maxaa loo furi leeyahay duleelka intaan fiirinaan si eegayna darbiyadan qooransanayna Soomaha waa edab darro weeyaan ya rasuulku wuxuu hadur ka dhigay hadur yaani bilaash wuxuu ka dhigay ya
haddii guri albaabadiisu ay iska furan yihiin oo kale intaad soo istaagtid haddaad qooraansatid gudaha ilaa guryaha waa cawree ya haddaad qooraansatid ninka gudaha ku jira dhagax hadduu soo qaato ish uu kaa rido dhiig ma lihid bilaash waaye khalbaalkum indhihiina ilaaliya ilkihiina ilaaliya wejigiina qurxoon ilaaliya guryaha waa cawraad yaan la eegin ayib nin kale ayaa sidoo kale maalin maalmaha ka mid ah arday buu lahaa ninkan sheekha ah guri buu ku jilan yahay oo uu ka cunteeyaa maalinkii dambe ardaygiisii buu soo kaxeeyey markii fiiri adabtaani ah indhaha markuu ninkii soo kaxeeyey cunaa loo keenay faraxal baa loo keenay markay faraxasheen wiilkii yaraa waa naxsan yahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun gabadhi qofkii markuu baxay sheekh waa sidee waxaan muru'ada islaamka ka mid maahe waa maxay qofta dumarka ee gacmaha noogu shubaysa gacmaha noo dhaqaysa miyaanu rag joogin miyaan ninkan waa karkaraya waa kaale arag odaga dii waa caalim 20 sano wax ka cunaya reerka wuxuu yiri maandhow 20 sano gurigan wax ka cunaayay 20 sano ayaan ka cunayaa wallahi la adri qofkan biyaha iigu shubaya rajulun am imra'a wallahi inaanan garanaynin edabta fiiri 20 sano odaga waa horsadaa waa loo dhaqaa qofka kor maba u fiiriyaba ma gabar baa mise waa wiil waxaan biyaha 20 sano ii dhaqaaya 20 sano aanan fiirin oo aanan ogeyn waa ii afkaaga maanta kaliya timid war indhahaaga edab u yeel maantana waa kana qofkii shanqarda yartaba wax biyaha soo wada wax weelo sii qaadaya saas uu eegaya qofkan war indhahaaga edab u yeel guri hadaad gashid lama eeg darbiyada laakiin anaga caadiyeena maxaa waay waxoo dhan la wada fiirfiirina waa la jeegarayna hadhow in la qiimeeyo la rabaa ma ogtahay la ilaaha illa allah gabar baa waxay tiri sheeko keentahay gabar baa waxay tiri hadaad aroostid maxamedow hadaad aroostid haweenka yaani gurigaaga soo gelin gabdhaha iska ilaali way tiri maxaa dhacay ma taqaanay tiri waxaan sameeynaa gurigaan galeena gabadha markaan u tagno inaan booqanayna iska dhigeena gabadha intay jikadii wax noogu maqan tahay sariirahan ku bodboodayna waa fiirina la ilaaha illa allah sariir alwaax ayaa la siiyay sariir alwaax war hooy musbar amu ka dura kan birtiya soo baxsan birtiya naa dhiqla amu naga raaca waa la hargufa maanta dhan yaani edab darro waay soo markaysid maxaa la rabaa hadhow waxaa la rabaa in الجزيرة اللي جايه الرباح دو CNN laga sheekeeyo war guryaha waa cawro amaana la rabaa amaano guri marka tagtid lagu xushmeeyo ma aha inaad eegtid waxyaabaha indhaha laga laabaayay kamid yihiin waxa soo dhan tayib maalin maalmaha kamid ah ciid Hassan ibn Abi Sinan ayaa wuxuu aaday waa nin hore saalixa wuxuu aaday ciid maalinka ciidii waa taqaanaan xogo waa la soo daahayaa moogta asxaab baa la qaabilaya asxaab baa la salaamaya waa markaasuu soo yar daahay islaantiisii markuu waa yaaban tahay maalinkaas qof walba soo xaragoonay Soomaa gabdhihii quruxdoodii banaanka wax walba way yar shakis war odaygii maanta wuxuu kaaga soo daahay markaas wuu yimid mar allaala markuu yimid ayaa waxay tiri Abi Sinanow ma laga yaabaa waxaad ku soo daahday maanta gabar qurux badan inaad aragtay ama waxay tiri Allah imisa gabar qurxoon ayaa Abi Sinanow aad maanta soo aragtay ishaada ku soo dhacday way ka korbaxaysaa moogta inay xisaabisay rabtaa markaas wuxuu ku yiri wallahi ninka qiimigiisa eeg wallahi ما جاوز نظري موضع قدمي منذ أن خرجت إلى أن عدت والله إن دهيق ما ينضافين هل كعكت أن دقايو لقت هل كأن سارايو والله أركت ذيذو ما دافين ما مركي أن كاتجي إلى أن كاغا صلاته أنتنا ما فيرين مدك بدحنا ما ايجين هري قدال مدنا ما ايجين كوري هوس ما ايجين هل كاسن فيرينا دي واسيده مؤمنك لو يقان هلك عقت aad dhigaysid inaad eegtid Soomaha sidaasay ahaayeen dadkeeni wanaagsanaa ee salafkeena ahaa ee la rabay diintan ayna faraside inaynu raacno oo aynu uga dayano aragtida iyo indhaha oo la laabo
raggaas هؤلاء رجال والرجال قليل rag bay ahaayeen laakiin ragga بمعنى الكلمة aad iyo aad ayay u yar yihiin كانوا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار wax kale sidaa ma yeelin maxay ka baqayeen ninka muxuu u eegi waayey waxaan u baahanahay nafsadu jeceshahay ibliiska nafsada hawada shayaadiinta maxay ku dhahayaan gabadha eeg si fiican indhaha uga buuxisa gabadha raac socodkeeda luuq walbo ay gasho eeg madaxa ilaa iyo minjaha fiiri laakiin way diideen raggaa way diideen sababtay u diideenna waxay ka baqayeen maalinka ay gadgadoomayso indhaha aragtida iyo qalbiyada qalbigu uu soo baxayo ilaahay la hor taagan yahay maalinka adag maalinka maal iyo xoolo ayaan waxba taraynin maalinkaasay ka baqayeen cadaab allay ka baqayeen war waxay ka baqayeen miyaynan ka baqaynin maxaynu uga baqi la'nahay sow ina qabsan mayso mise iyana gooni baa loo xisaabin annagana gooni waxay ka baqayeen way inoo taallaa walaalayaal inaynu baqno ayaa inoo wanaagsan adduun iyo aakhiro ayib midda kale fasahaadulqalbiga keenaanaan niri dadkaa aan soo sheegnay waa dadkii wanaagsanaa ee raacay amarka ilaahay marka wax la amra waa ka ilaaho waan qaadanay samcan wa taacan waxaa ka hara samcan wa taacan dadkii baariyaalka ahaa mu'miniinta ahaa waaye aynu u gallo dadka kale ee caasiyiinta ah dadku waa laba soo maaha waa mujrimiin iyo mu'miniin weliga ogow nin wanaagsan iyo nin xun unbuu adduunka ahaan jiray soo ma ahayn adduunka yaa ugu horreeyey mataqaanaa labadii wiil ee ugu horreeyey haabiil iyo qaabiil qaafka waa qaatil dilaa weeyaan haabiilna wiilkii fiicnaa ee mu'minka ahaa weeyaan yah marka dadka wanaag ardaal iyo nin wanaagsan way jiri jireen weligeedba amarka ilaahay qof qaati qof diida dadkii wanaagsanaa waa kuwaasaa sida quruxda badan u dhaqmayeen halkii tagayeenna dee way iska caddaho waa xag alle laakiin kuwii xumaa waa kuwaanaay wuxuu dhaxashiinayaa qofka haddii uu ku dhiirado inuu eego macsi ilaahay indhaha dadkeenna waad aragteenoo wadooyinkay fadhiyaan gaxwayahay fadhiyaan meelaha suuqyaday fadhiyaan bilaa macno iyagoonan dan haynin awlaaddoodii bay raggii ka soo tageen dhalinyaradii waxbarashadoodii iyo danahoodii bay ka soo tageen suuqyadaasaa sida arcarbeedka la meeraysanaya wax danoo lahaya male waktigaa la dilayaa waktigii asaga ina dilayaha laakiin waxaan leenahay waktigaan dilaynaa war waxaan suuqyadan la fadhiyo waa laynoo diiday rasuulku wuxuu yidhi joojiya iyaakum wa juluusu turuqaat joojiya inaad fadhiisataan banaanka wadooyinka jooji markaas ina danaheenaa ku xiran ayib xaqa wadooyinka siiya haddii salaan ladin salaamo radiya indhaha laaba alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar fasahaadka joojiya xaq buu leeyahay wadada xaqiisiina ma siino indhaheenu waa furan yihiin dad ma salaano wax wanaagsan ma farno wax xun ma celino waana laga keri laayahay suuqyadii waa ku indhabeelnay eega indhahoo la daayo macsida ilaahay lagu daayo faa'iida darrada ay leedahay suu'ul khaatima adduunka markaad ka tegaysid ayaad ka tegaysaa aad bilaa shahaada bilaa huwiya ogow bilaa shahaada macnaheeda maxaa waaye laa ilaaha ila allahu la-aanteedaad dhimanaysaa macnaheedu waxa waaye bilaa huwiya ayaa tahay dhalasha la-aan baa tahay magac la-aan baa tahay qofka huwiyadiisu tahay muslim intuu gelayaa janno qofka bilaa huwiyada ah cadaab buu gelayaa cadaab baa leh haawiyaa leh saqaraa leh saqara jahaname jaxiimaa leh walciyaadu billaah su'ul khaatimay leedahay eeg ma maqasheen ninkaa waalan rasuulku wuxuu yidhi laa yanduru rajulu ilaa cawrati rajuli ninka yaanu eegin ninka kale cawradiisa lama dhihin ninka waa fududaysanaa runtii yaynan fududaysanin ninkan wax kale kuma halaagsamin aan sheegi doono annaga laakiin waxaan caadaysanay xataa hadal keliya ma ahane raggii xataa inaan fiirino inaan baridiisa fiirino naasihiisa fiirino koobkiisa fiirino qaar baad arkaysaa xataa ciyaal suuqinoo yani waxay samaynayaan hor bari weynaa ninkii war waxbaa kaa soo dhaay markaasuu tuujinaya markaasuu naaskii qabanaya ninkii yani waxyaabo ciyaar ah
laakiin ninkan ila dhageysta rag inaan lagu ciyaarin markuu xabiibka leeyahay sallallahu alayhi wasallam ninka yaanu eegin ninka kale cawradii maxaa laga baqayaa waxa laga baqayaa wax maanta jira nin baa nin kale guursanayo hawaysanaya maxay ka bilaabatay guurka farka ciyaaray ka bilaabatay aragtay ka bilaabatay ninka inuu ninka arkooday marka hore mar alla markuu arkay farka ciyaar hadana farihi kadib maxaa way qalbigii wixii ba fasahaaday waa kuwana maanta waa laba qof oo isqaba guri bay wada galayaan wariyaan la fududaysanin la yanzuru rajulu ila awrati rajul ma maqashan ninkan waalan ee wareersan xayraanka ah ee dhahaya aslamu ya raahat alcalili ويا شفاء المدن في النحيل حبك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل إنا لله وإنا إليه راجعون معبدين كان فما قصة هذا الرجل وحلايه أسلم ويل يرو دلن يرو بعبعو كوسانو قبلها أها قرحون ويل الباجرة أن قبلها لقى أقونين حتى علماء الفقه هذا وحيتر هذا كواه هو يسدي كجبنا يعني ما ركتن ويل كجبنا ويس ما ركتن ورويلش ويس ما يجبيان قار لسك إلى ليا جرى خلي بالكم هذا تهبتت بمعنى ذاتك قار كي شهوة هاني أطاونا يعني ويلك وقبر أنت تاين مركا أسلم أيو أركي إلى أمركي وفيريي ويلكي وكوري هوس كفيريي وجعل هذا قلبي سيبا وقالي وراعي إبليس باكوفس هذه ويلكي والدبقل كسمي ويلكي وجعل هذا لكن ويلكي واتجي مركز وشعرايا وحقبت يعني وجر هذه ما أنت الدم بوحي من ماشي يدا أهيت أو كأركي ورادي الله أسلم آوي ما أركو مرء الله هدان أركي لها ما لنك الدم ننك واضح نصدي عذر وكل عذر حب الأسود عذر باكو دحay maxaa keenay aragtidii iyo raacraacii markaasuu ninkii xanuunsaday nin akhyaarna uu ahaa oo lacag leh oo xogo ya baashii la isku jeclaanay hayeen odayaalka u yimid oo ninkii sakaraad war maxaa dhacay war ninkii aslam asagu wuu shicraaya wuxuu leeyahay aslamu ya raahat alcalili ويا شفاء المدن في النحيل يعني أسلموا كي ننك حنونسن مسكين كا تعبان كا لمن ربا كي بوكسينا يو يعني وحنونسن هاي داوك لنا ما أنت مليه وحكي لي الداوين كر أسلموا وأذيق أيوليه حبك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل جعلك هاجا جعلك أنكو قبه قلبي جاي مرك الله إيجو وحكي بدن يهي يا إنا لله وإنا إليه راجعون رحمة إلهي نحرست إلهي إنه يعافيه وحن كجعل هاي مانتا إن أنا هلو جعيلك هاي إن أنكو هلو بمعنى وحولي إن أنكو هلو أيان كجعل هاي رحمة إلهي وكلمة الكفر واي ما قارسي أركتدي ننجعلانا يواي ما أنت مسا إسجعله كلها ننك كله كنيسة كو جورسنا بل الصومالي أيا جرت إسجورسنا يسا واتقرنا يسا قال هذا كلا في عن سومه جدين عذاب كلا بسد هذا أيا قال كو كدرنيها الله مريا حديث سيدنا قوة الإنسان أوباما يموسفني أوباما عذاب كل وهر مرنا يا سومه جدين بسفن وادي البرلمان كأنه مري وحير دقن أفريقيا لنا النجا نين جورسنا يا مايا وادي دقن أملهن دا أفريقيا هاي وقال يهو لكن أملهن لكن أوباما حير وإسجورسن كران يزي قفل بقفكو قال لماذا كجاء دقيقة كذب بدنيا يا وحوايه عذاب كالله مرينا يا أج مركز وحال يري هالله دونه ورهالله دونه يدونه لينك وادي منا يا وأخيار tilmaantii uu sheegay sida loo raadinay aslamkii alla keenay waxa laga soo dhaadhicay waxa la yirniyo waxa uu odagu kugu sameyn maayo laakiin isaga tag adiga bal qanci xogo inuu bogsooda laga yaabaan haye wala soo sasabi sida u soo socday ilaahay ba tawfiiqda waafajiyay mar alla markuu iridda soo gali rabay ayuu wuxuu fiiriyaa leer samada markuu fiiriyaa wuxuu yiri wallahi inaanan cagta gelinaynin ya meel sumcadayda ay ku halaabayso مكان يعني محل التهم oo in lagu tuhumo aniga markii haduu intuu iska gala oo ag fariisto oo u qoslo odigi u bogsado maxaa la dhahayaa waro
aslam unbuuba u bukayba aslam jaa waa lasoo taabsaday odayga waa caafimaadey meesha shubha imaanaysa wuu diiday wuu cararay kiina waa sugayaa marka la yidhi waa lasoo socdaa waa lasoo wadaa wiilkii waa lagu soo helay oo odaygii waaba faxfaxay waa caafimaad weli ma soo gelin odaygii oo fadhiya war aaway markaasaa la yidhi aslam waa diiday waa noqday war maxaad dhahdeen waa dhacay aslamu yaa raaxata alcaliili wayaa shifa ninka sakaraad baa haya nafsadii waa ka soo baxaysaa war inkaan qabe dheh laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah waad dhimanaysaa dheh laa ilaaha ila allah afkii ma qabanaya aslamuu yaa raaxata alcaliili wayaa shifaaء almudna fi الnaxiili xubuka ashhaa ilaa fu'aadii min raxmati alkhaaliqi اljaliili sida uu u lahaa niminku waa yaabeen acuudu bilah ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun war naga tag waa laga kala tegey iridda kama ayna bixin naftii waa ka dhacday su'u lkhaatima maxaa keenay waa aragtidii uu fiiriyey ninkaa kalena eeg suuqyada ayuu diiday inuu ka taga indhihiina wuu laabi waayey halkaas suuqii meelaha gabdhaha qudaarta iyo wax ay ilaa baadiyaa laga imanaya suuqyada gabdhuhu ku badan yihiin iska taagan yahay maanta dhan gurigiisana waa halkan derbigaasuu taagan yahay macawiisuhu mataa maanta dhan waa kaasaa xagga tii sii socota tii soo socota tii fadhida tii si xun u fadhida wixii oo dhan bu maanta dhan waa sidaa gabar miskiin oo baadiyaha ka timid ayaa xoogaa xaajo qabatay magaaladana ma kala taqaana meel suuq geeskiisay fadhideen musqul bay u baahatay meeshana ma kala taqaana marka meeshana waxaa la yidhaahdaa musqulaha magacyadooda minjaab markaasay tiri suuli baan rabaaye waxaa la yidhi luuqaa ka baxo halkaa leexo guriga gadaashiisa geedka guryaha ku yaala halkaasaa suuligii ah se usoo weydiinaysa gabadhii oo miskiin ah reer baadiye ah daalan ayaa waxay ka soo kordhacday odagaanoo dee yaa derbiga lugta u saaran tahay markaasaa waxay tiri walaalo waxaan rabaa waa daalanaha meel fogna waa ka imide musqulihii minjaab baan rabaa geesaha luu iska fiiriyey wuxuu yihi waaba joogtaaye waa gurigiisii ogow waaba joogtaaye wuu uga leexday wuu u furay haatanaa gal gabadhana waa la hayey dalaq gurigii ninkaa gasha geesuhu fiiriyey wuu ka dabagalay iridii soo xirtay waa khaa'in mar allaal markuu soo xirtay gabadhi intaanay dhaqaaqinba gadaal hadee soo fiirisa dabinkii way ku dhacday nin bay ugu jirtaa guriga reer magaalana way ahayd ilaahayna tawfiiqda waa waafajiyey markaasaa waxay tiri markay aragtay in dee guri ay tahay meel sariir iyo waxay yaalaan ninkana uu soo xaydxaydanayo ayaa waxay tiri war niyahow horta maanta waa maalinkii aan ugu farxadda badnaa wax allaale wixii aan reebay maanta waaba helayba tan un baan raadinaya masquul ma rabine dee niyo waaxid gurigan cidlada ah dee aawi cabitaan aawi cunno oo dee wax noo keen aan si fiican ani adiga u baashaale sariirteeba kusii fariisatay gabadha ninkii waa yaabay yaa tan iyadaaba kaa kulul soo maaha markaasuu yidhi wax yar ii suk wuu baxay ninkii waa booday dee farxaddii baa ka badatay laakiin doqonnimadiisa muxuu ilaaway guriga inuu soo xiro qalbigiisa marnaba kuma soo dhicin tan waa ku siraysaa waa kaa tegaysaa sir naageed lagama salgaara markaasuu booday xoogoo lacagii dambiishii buu qaaday inuu soo adeeguu rabaa wuu booday gurigii wuu ka baxay daartii wuu kasii baxay teg way fiirisay nacas markaasay iska danaysatay musqusheedii aaday way baxday kiyo dee yaa suuqii oo dhan soo raray ayaa gurigii yimid markaasuu fiiriyey intuu fiiriyaa male heblaayo ninkii waa shayba si fiicanna dee wuu isu raaciyey gabadhii waata uu dhahayo markaasuu banaanka soo booday luuqaas fiiri luuqa kaaga daranta shay uu xaq u lahaa in laga qaatay oo kale xaaskiisiyuu xaggiisa raadinayaa intuu orod magaceedu ma yaqaana laakiin muuqaalkeedii iyo tilmaanteedii xaaladay isku arkeen waata uu dhahayo yaa ruba qaa'ilatin yawman waqad tacibat ayna aariiqu ilaa xamaami minjaabi ayna aariiqu ilaa xamaami minjaabi aaway allah yaa arkay tii maalin iyadoo daalan eeg magaceedo dhan wuxuu ka dhigay allah yaa arkay tii maalin iyadoo daalan idhahaysay aaway musqushii minjaab xaggee loo maraa musqushii xaggee loo maraa musqushii aaway tii daalanayd ee dhahaysay musqushi aaway dadki waa la yaabay
ninkii waa raacay maalin walba uu raaca haweenkii ka dhex fiiriyaa shicirkaanuu tiriyaa shicirkii waa la xifdiyey waa la gartay qisadii wixii oo dhan ninkii waa maalin ka dambeeya waa raamoole waa si wasakhoobaya cunno waa ka haray wax walba waa ka haray ya xaqiisiyuu raadinayaa asaga xaggiisa markaasaa magaaladoo dhan sheekadiisaa gashay tujaariyadoo kor biyo kasoo daadinaysaa kiioo dee intuu halaabay dhareerka daadinaayo oo socda ayaa waxay ku tiri markan هلا جعلت سريعا إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب وروحي ونعسك الضغنك أهو هدي آوات هشي قبضان محاد وقدك دقي ويدي إن مركاد بحيسي آد راشين كرادينيسي آد قريقا كو حرتيد أما دارتو كوري إناد حرتيد أو أسوغتيد محاكو والي واو مركاسو سيقا إلي هذا نسيئوي يعني جانسك إنو أسيق اللوميي أيسان قبضان الله أنا يا رب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جابي كوكالي عربيت ودمada carabta madowga laga ma yaqaan gabdhaha madow waxa loo yaqaana maxay adoomo waa lagu shaqeystaa isma guursadaan nin cad oo carab ah waayidii hore kuma guursanay gabar madow laakiin maalinba ninkan gabadhii buu sixin u arkay meelaheedii maxaasintii arkay wuu raacay wuu fiiriyay ibliiskii baa qalbigii fasaadiyay wuu jeclaaday waa la yaabay gabar madow wuu jeclaaday markaasaa waxay sababtay si xuna xaaraana wuu u jeclaaday waxay sababtay in ninkii uu jeclaado gabadhii horta wuu waayay laakiin sidii qaabka darneeda gabadha madow uu jeclaaday ilaahay wuxuu ku ibliiska yani wuxuu ku kalifay in uu jeclaado wax walbo madow xataa eeyihii madowaa wax walbo madow waa uga qiimi badan yihiin oo uu ka jecel yahay waxa kale dheriga madow waa ka jecel yahay dheriga cad gabadha eyga madow wuxuu ka soo dhawaysanaa ibisadaha madow kuwa kale yani ninkii nin wuxuu noqday qalbi madow oo un wax madow un jecel wax madow arka waa ka uu shicraye uu dhahayo waa ka uu dhahayo أحب الكلاب السوداء من أجل حبها ومن أجلها أحببت ما كان أسودا وحان جعلادي eeyihii madmadooba ayaan aad u jeclaaday gabadha jacayl ah on qaba darteed iyada gabadha darteed ayaan wax walbo madow aan qalbigayga u siiyay oo aan jeclaaday eeg ka kale muadimka ah Ciraaq minaarad buu fuulay dheer minaaradii mar allaala markuu fuulay casarkii baa la adimayaa masaajidka dhinaciisa waxaa degan kristaan masiixi ayaa degan odaga shaqo aadaa gabar yar buu dhalay dee goono yar iska qabtaa oo iska qaawantaa laakiin daaradii banaanka ay xaaqaysaa way foorartaa marka meeshay balash xaaqinki dheeraa isna intuu saaran yahay minaaradii kore xaya cala salaa intuu fiiriyey xaya cala falaax intuu soo eegay inta markuu eegay unbaa indhihiisa waxay ku dhaceen gabadhii dambeedkeeda iyadoo weliba foorarta xaalad xun waaba ka soo jeesan waay odagii markuu haddana wuu ku noqonayaa wuxuu ilaaway adinkii inuu dhammaystiro mar allaala markuu ilaaway gabadhii fursad jaaniska iskaa baxsan uu leeyahay strike while the iron is hot birta intay kulushaha la garaacaa soo maaha wuu fiiriyey ilaahay amarkii aragtidii qalbigay gashay qalbigii waa madoobaaday adinkii wuu kari waayey markii buu soo degdegay odagii geesuu fiirinayaan lagu arkin wuu soo gudbay wadadii gow guriga garaacaya gabadhu ayaa bantahay min markaasuu ruu aniga iga fur maxaa dhacay qof yahay gabadhu buu eegayaa kor iyo hoos qof yahay adan ku rabaa war maxaa iga rabtaa saddex shay waa kugu rabaa ima inaan ku helo si xalaal ah ima si xaaraan ah ima wax walbo adiga codsatid illa way yaabtay waxay kulan xaaraan ma rabee waxna kaama rabee laakiin haddaad guri iga rabtid aabbahay u imow goor mu imaanaya aabba maqribku imaanaya oday kristaan macatab weyn intaas balaas ugu xiran markaasuu ninkii marba ma yimid aabe war ninkan markii dambe odaygu u yimid waraa maxay ninka soo garaacayo guriga kasali aabba waa yaadkii oo meeshan dadimay oo muxuu rabaa ma ogi abuu ku rabaa odaygii baa soo geli war maxaa rabtaa wuxuu yiri gabadhaadaan rabaa oo maxaa ka rabtaa inaan guursadaan rabaa isma geeyno ogsoontiine oo ogsoontahay adna muslim baa tahay anna
maxaa ka micnaa waxa rabtaan idin sameynaa ka soo bax diintaada waa ka soo baxaya allah ma sidan fudud laakiin macatabka xiranaya waa ogolahay yaa dharka bixi waa bixiyay baashiya loo xiray catabka loo xiray waxa la yiri khalaas khalifa tahay laga bilaabo maanta gabadha caawa baa lagu aqal geynayaa haye ninkii waaba kala badbatay guri diyaarsan soo maaha qab jaranjaradii fuulay laakiin gabalka markuu dhacay adin ha sheegin ninkii deesbool waana cagta meeshuu dhigay xataa aanan aqoonin mugdi ah buu wuxuu ka soo dhacay gabadhu u soo degdegaya caawa habeenkii la aqal geli lahaa jaranjaradii lugta baa u baxday qab waa maxay waxa soo dhacaya ninkii nafba dhulka lama soo dhicin maxaa u xiran baashi waa u xiran maxaa u geeyay waa gabadhii uu fiiriyay oo uu ku celiyay ma aha fiiradii hore ogow xaya cala salaa markuu yiri uu fiiriyay hadduu ka jeesan lahaa waxba looma qabteen laakiin ha raacinin aragti kale caliyow tan hore adaa leh tan dambe khali baalak waa su'ul khaatima ileelkan waa inoo taalaa walaalayaal maxaa fama alcilaaj marka fama alcilaaj maanta waa aragtaan kenyaad ku nooshihiin dadka arki doona cajaladaanay arki doona Oroobay ku nool yihiin 6 biloodna geedaha qaawan 6 biloodna dadka qaawan 6 bilood gabadhu way qaawan tahay dadka waa lagu dhex nool yahay annaga waad aragtaan oo dad gaalaan ku dhex nool lahay waad aragtaan islii waxa ka taagan gabdhihii iska dhaafay kuwii gaalada kuwii muslimiintii baa iska qaawan dirac khafiifa madax qaawan jirkeedii oo wada rinji ah banaankii halkaas la wada tuwan yahay dadkii kale gaalada ahay aan muslimiinta ahayna waa aragtaan oo deewaaba sharaawili la wada wataa finaanad yar la wada wataa dabagaaba la wataa walaalayaal waxa marka ku khatimaya fama alcilaaj waa maxay daawada maxaa loo baahan yahay dadka waa labo waxa loo digayaa ee adoomada Allah indhihiina laabta la dhahayaa waa laba nooc waa maxay waa nin guursaday iyo nin aanan guursanin Soomaha dadka labadaas ay u kala baxeen labadaba Ilaahay baa daaweynaya islaamka daaweynaya madrasada muhammadiyada ah daaweynaysa ninka guursaday waxa la dhahayaa oo Ilaahay rasuulku uu leeyahay idha ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabathu falyati ahlahu فإن ذلك يرد ما في نفسه ورهدي متكين وانكي قرسدي هدي انتو قريسا كصبح بنانك او يمادو او اركو قبر وقهلي او ابليس قلبي سي عذر قليو او تشويش قليو يانو الزنيسين يانو سي ايجيني يانو اندها تايجيني هسون نقضو قريسي هاكو صولابتو حاسكيسي هاو صولابتو اهلكيسي هاو يمادو ايادا الدوينيسي markay mid uu soo arkay waxa iskiisoo kale gabadha uu soo arkay waxa ay leedahay ee qalbigiisa taabtay xaaskiisii way leedahay tanana xalaal u ah iyada daweynaysa xaaska u soo laabto war inta guursatay way idin qayl dhaaminayaaye inta xaasaska lahow hadaa ibliis uu cudurka idinku taabto u laabta xaasaskiina xaasaska guriyaha maxay u joogan waa dhaqaatiir iyaga idin daweynaya si xalaal ah waliba okay dadka aanan guursanin rasuulka daaweynaya wuxuu leeyahay ya ma'shara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farj war dhalinyaray inta awood leh ee guursan karta dhalinyaroy inta guursan karta ha guursato guurka iyaga indhahana laabid og farjigana xifdin og guurkaad ku badbaadaysaane guursada waman lam yastati' qofka aanan karin maxaa lagu samaynayaa ee aan heli karin dhalinyarada ahna maxaa dawadiisu tahay fa alayhi bisawm fa innahu lahu wajaa hasoomo waa dhalinyarada aanan guursanin ama aanan guursan karin ee aan taagta lahayn tabarta lahayn dhaqaale ku filan haysanin waxa la yiri ha soomaana soonkaasa gurinaya oo cudurkii ka bixinaya waxa lamida dhalinyarada waxa lamida odayaalka Oroba ka yimid ee xaasaskii ama Oroba joogay xaasaskii soo diray xaasaska kala maqan xukunku waxay galayaan dhalinyarada inta gabadhu ka maqan tahay
aduguna dawadaada waa inaad soontaa ilaa waad arkaysaa shahwadaad leedaho indhaad leedahay yaa xaaskaagii uma tegi kartido way kaa fog tahay haddii cudur uu ibliis kugu taabto soonkaasaa ku gurinaaye ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay subxaanahu waxaan ka baryayaa inta dhalinyare aana guursanin guri xalaala inuu u sahlo guur ay ku degaan inuu u sahlo guur indhahooda laaba inuu rag iyo dumarba in ilaahay uu siiyo guur farjigooda xifdiya inuu ilaahay siiyo awlaad saalixiin oo anfaco caawiyana inuu ilaahay siiyo inta waalid kala maqan hooyo iyo aabe inuu ilaahay isu keeno weliba fii axsani alxaal inuu isu keeno oo weliba ku irsaaqo waxa lagu kala maqan yahay waa un adduunye hawlo adduunye inuu iyagoo wada jooga hawlihii adduunyo iyadoo xalaala oo barakaysan inuu ilaahay siiyo ilaahay waxaan ka baryayaa inta waalidee xanuunsan inuu ilaahay caafiyo inta waalidee xanuunsan ilaahay caafiyo inta waalid ee riduhu ka xiran yihiin inuu ilaahay u furo inta waalid baahi qabtaa inuu ilaahay baahida ka qaado inta waalidee aradan inuu ilaahay aratiro inta waalid ee murugaysan murugta inuu ilaahay ka qaado inta ubad caasi ka yihiin inuu ilaahay baari uga yeelo inta waalid ee ubad ka xiran inuu ilaahay u soo daayo inta caasiya inuu ilaahay baari uga dhigo inta daraagistayaalka inuu ilaahay wanaajiyo ilaahay inta maqan ee ubad ah ee waalidiinta ka maqan har iyo habeen bay ooyayaane inuu ilaahay soo celiyo waxa ugu daran ee naga maqan waa dhulkeenii dhulkii aynu ku dhalanay dhulkii aynu ku soo barbaarnay dhulkii aynu wax ku baranay dhulkii aynu ku soo kornay dhulkii qalbigeena ku weynaa ee qaaliga ahaa dhulkeennii ayaa naga maqanay dhulkeennii inuu ilaahay noo badbaadiyo berisamaadkii ku soo celiyo horumarkiisii ku soo celiyo waa halkaynu ku asturneen dhallinyaradeenu ku asturnaayeen qiimiga ku lahayn laynagu xishmaynayey inuu ilaahay noo badbaadiyo inta isku haysataana boggooda burcad mariyo wixii cadow ah ee jooga ee dhulkaa hallaynaya inuu ilaahay ka qaado dhulka dad baa leh dadkiisii waa kana waa meelahay qaxootiyi yihiin waxay daadsan yihiin maaragta waddamadii dariska iyo waddamadii dibadde inuu ilaahay dhulkaa dadkiisii u celiyo berisamaadkiina uu ku soo celiyo haddaynu ka tegayna adduunka ilaahay waxaan ka baryayaa rasuulka maciisa jannat lfirdows inuu isugu kaayigeeyo innahu waliyu dalika waalqaadiru calayh intaa ayaan kusoo gabagabeynaya walaalayaal هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.